horta xamaaliga waxaan idin dhihi lahaa sabra ninkii sabra sidkiisa helaa marka hore waxaad ahaydeen dad dulman marka hore waxaad ahaydeen dad runtii culeysyo badan ku sabraayo Puntland dowlad ay leedahay oo madaxweyne Kenya Siciid Cabdullaahi Dani insha Allah kulli fariimihiin way gaari doonaan qof muwaadin Soomaaliyeed ah in lacag $90 lagu canshuuro horta waa wax aad loogu xumaado waliba xamaali ah kiish madax ku qaadaya 3,000 4,000 oo shilin Soomaaligii hore ku xamaalay marka horta nasiib xumada hadda Soomaaliya haystay taas kamid tahay annaga waxaan nahay shacab reer Puntland ah dadka jareeri ku dhahan laakiin waxaan nahay dad shacab reer Puntland ah oo xurnimo ku haysana Puntland alxamdulillah maantane annaga isma dheheyno xaaladan taagan idinkaana lagu danlay isma dheheyne waa wax shacabka reer Puntland ay nala qabaan waayo maciishada hadda san u jeedna kore u kacday xaaladda aaday u xun tahay oo busaarad badan beledka ka jirta marka horta alxamdulillah marka xamaali waxaan leeyahay horta sabar horumar lagu gaaraa sabar lagu horumaraa lacagtan hadda la sheego $90 oo aad ku badan adiga ma tihid ajaanib ma tihid muwaadin Soomaaliyeed ah ninka xamaaligan la hadlaa muwaadin Soomaaliyeed ah dulqaad adkayso $90 inay cid dhiibi karin waa la og yahay $30 ma $25 maanta degdeg soo xamaasho inaad magaalada Boosaaso dhaafsiinin cid walba way og tahay $25 ku soo gasho $12 qaad waxbaad ku soo qaadataa ilaa $15 sigaarkaada jaadkaada qulubtaada waa $7 reerka markaad biil ahaan ugu tuurto dadka magaalada way ka daba guureen dukaamay meesha aad degantahay ka furteen gabadha lacagtiisa siiso ayaga lagu celiyaa subaxii waxaa macquul adiga xamaaliga inaad hataa ad weyso waxaad baawur ku soo raacdo oo hebelo $50 iyo soo dira adoo xal $30 qaatay xaaladaas nin ku jiro $90 ma dhiibi karo $14 meelna ma dhiibi karo qofka Sembir waxaa fiican in loo naxariisto marka madaxweyne Siciid Cabdullaahi Dani niyo ummadan adaa matala dadkaana shacabka maalintii yawm al-aakhir adaa lagu soo istaajinay ودمري oo saan macquul ma ahane mudana madaxweyne ajaanibtan aad soo daldaleysin oo dalka shaqaalaha ka noqonaysa ma ahane dalka marka horeba jareeras lahay ka xamaali jirti guryaha dhisi jirti guryaha waxeen jirti jareerta hadda sheekada lagu arkaan garan laahay nagama farsamo badna nimanka aad keenteen nagama aqoon badno nagama aqli badno oo waliba Soomaali si oo dalkaani si joogno is afahmeen waliba marka sidii waxay waa garan lahay aniga sidii waxay waa garan la Soomaalida kulay anigu waxaan dhigi karaa waa dad gaalada aad u jecel gaalada aad u jecel yihiin wallaah ajaanibta aad u jecel yihiin waliba marka saan macquul maana saan wax laga bedelaniyo saliid la ku qabaysan